السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري إذا guys بنا القاعدة ونسا هو ورك ضربوا حرجة جمعية النحمات قبتهن سنوقتنا سن guys سما تلقى سؤالك موضوعك سؤالك وكذا ورت تتلقى الموضوع قلبه سعادي هذا يعني واحد وبرتين واحد عيبتي ما هو عادي أنا دوركو بريس كم مغنى دوركو بلوز كم مغنى هذا نصون نقضه كل مرة بدون وايد ده وايد صون نقنا صون نقنا اسكعب سن فهد هاد كدي بو اسكع موسى توكلت على الله حلقي صون نقضه أركا حلقي أجيفتنا أرك إن شاء الله فهمتي مركا حرجنا ورت الميتين عفمات قبتان سودو هذا انت المقال كن قد قال كورة دي ماشي عصبتها جناك سبسكرايب وصار مقال كان والله جري ادي ما سنتها واركا جناك سبسكرايب كيس اسكو سعدان مقال wax soo dhigin مقال كي قدام بي جنالكيga ama subscribe قدام بي akuga wuxuu ahaa 215 ama 14 meelaas oo ahadan harka 220 aad iyo ma santihiin dadku cusub oo soo biiray soo dhawaada in leeyahay kulay maanta maqaalkan uu ka duunaan doona maqaalada hore idin soo gudbinayo wuxuu noqon doonaa muqaal dhamaantiin xiiso doontiin soo insha Allah koobkaaga shaax soo qaado ama nagaha gasho hoolaaga iska qabso waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka heli doonto muqaalkan aan gudgalno muqaalkeena waxaan kugu soo gudbi doonaa serial killer ama delay adiga isdhihi kartid marka aragtid qaabka wax u galaa ama qaabka wax u dilaa isdhihi kartid intaba wuxuu isticmaalaa mentality ama si aqliyaysan wax u dilaa soo insha Allah waxaan rajaynayaa inaad noqon doonto adina kiisbaare marka daawato muqaalkan waxa dhacday in 2021 markii taariikhda ahayd ay booliska soo gaaraan koolkaas kaga imaanayo qolo dhibaatada gaartay dariskooda una sheegaya in caawinaad ay u baahan yihiin booliska markay meesha imaado investigation baaritaan guud galay waxa loo sheegay in ay maqan tahay haweeney lagu magacaabo Edna haweeneydaasna ay maqan tahay dhowr maalmood sidoo kalena aysan gurigeeda ku soo noqonin shaqadana maysan tagin gurigeena maysan ku soo noqonin soo Edna waxa jirtay inay dhashay hal wiil ama hal cunug saa u taqaanayba cunug afreen nin weyn oo ahaa xilligaas soo marka waxa dhacday in ay booliska baaritaan sameeyaan ee aadan guriga Edna taasoo isku dayaan inay fiiriyaan guriga inuu wax dhibaato ka jirto ama guriga laga soo baxsad xoog looga soo baxsaday ama afduub lagu sameystay laakiin sidii may noqon booliska guriga tageen investigation baaritaanka ay sameeyeen gurigeed waxa la tagay iyadoo caadi ay guriga dhan jawi isku dagayaan wax buuq ama dhibaato ama garaaf guriga gaarsiisan halkaas markay sheekada marayso waxa dhacday in Edna ama haweeneyda maqan wiilkeeda oo dhinaca booliska kala baaritaan kala sameeyay oo guriga baaraya wuxuu sheegay inuu guriga wax muhiim u yaalo maamad wuxuu dhahay waxaana maqan dahab qiimihiisa gaarayo $50,000 Mareykanka أنا جوري باردان كل سميناه سو وحو أركي إن أي مقينين أما إن واحد جوري كمقينين سو الواحد كلا يعني كجلا وهذا كودرة أيده كل جد ما مقن حتى باور كذا ولا مقنع معناه كل جد لموين حتى باور كذا لواي باور كإيش قدك أي جرتي جوري كوج ما جرتي لواي حتى مرك واحد عادي مدة لقى سوري لحبري البوليس كان باردان كود حجناي باردان سيودين أي واحد عادي إن أي صهلان جاري إدنا منها جاري لا كل جدا لصهيل وحلا صهيلي ميل هوتيل قداشد أو أما باكين هوتيل قداشيس على غير أصول باكين سو كل جي سماها جاري وحا على أركب إنه ننصارناي أنا ننا وذا سو مركا نسيب هناك بوليس كوحا أسود كشيء إن كاميرا دا CCTV الكاميرا دا قبته جاري مشوا أداء واحد على إنه باكين كسر بحي كده بسوق السعودي أو إماراتي ميل ستور أما الدكان أو حل الصبح نما هبيني هاد ولا للسعودي إلا صبحي مركو إماراتي باكين دكان كوصوق علي كاميرا waxay qabatay nin ka soo baxay gaarigii oo na soo galay store-ka soo waxa dhacday inuu store-ka markuu soo galay ama dukaanka soo galay inuu soo iibsaday yogurt ka cadda u taqaaniinba wuxuu isticmaalay kaarkiisa discount-ka isticmaalay xaggaas oo information-kiisa booliska ay ka heli doonaan macnaha boolisku waxay information ku heli doonaan kaarka uu dhiibtay oo macnaha iskaanka lacagta ka bixiyay of course magaca ku qoran kaarka wixdan information-kiisa meesha laga helay sidaas darteed booliska dabagalka ay sii xoojiyeen ugu dambeyn waxa dhacday saacado kadib ama 6 saacadood kadib sheegeen booliska inay soo qabtaan ninka lagu magacaabo Daniel Brentis soo waxa dhacday markii ninkan booliska ay soo qabteen ay soo xireen interview intii lagu jiray ugu horeen wuxuu isku dayay horta inuusan wax baran ka sheegin oo wax beeniyo waqtiga xagaas dii jirtay meel meeshaan ay jiray kadibna waxa dhacday si sax ahayd waxa laga hayay ninkan cadeeman oo ah in CCTV kaamirada ay qabatay waqtiyaasha uu soo galay baakinka hotelka ka soo baxay waqtiga uu soo galay dukaanka intaba kaamirada wala socotay soo markii la soo qabto wajigiisa oo of course qofka anigu waa oo taagan yahay markii dambe ugu dambeyn waxa dhacday in laga wareysto arinta Edna waxa maqan haween magacaas lagu magacaabo saanisan oo inkiray soo booliska aqliga ay sameeyeen intii cadeeman sax ka soo helayeen waxay dhaheen meeshii hanoo joogo soo oo soo noqonayna interview damba qabaneen laakiin inta cadeeman sax ka soo helayno xabsiga ku helayna soo boolisku amar waxay heleen inay baaraan guriga Daniel ama ninka looga shaqsanaa in arinkan dambiilaha falka u geystay soo guriga markii la aaday waxa dhacday inaysan waxba cadeyn ka soo helin oo ku saabsan gabadha maqan macnaha cadeyn ku saabsan gabadha maqan laakiin waxay soo heleen guriga ay ka dhax heleen cadeeman kale oo kamid yihiin inay soo heleen booliska credit card ama kaararka lacagta lagu isticmaalo bangiyada kaararka bangiyada
oo kala nooc ah ugu yaraan 2 xabo miya 3 xabo laakiin hal qof leeyahay so xakaasna arrin kala soo kordhay waxaa sameeyay booliska kaararkii soo qaadeen baaritaan ay sameeyeen waxaa dhacday in xitaa mustaqbalkiisa dambe mustaqbalkiisa hore xataa inaysan soo marin qof kaararka isticmaalo ugu dambeyn waxaa la arkay kaararkan qofka ama haweeneyda iska leh inay maqneed 2017 ilaa 2021 intaas ay maqneed way maqneed soo xagaas waxa cadeen kaaga ah in Daniel ama ninkan dambiilaha loogu shakisan yahay in ay lug kale ku jirto soo xagaas meesan ku ekeenin booliska investigation-kooda baaritaankooda way sii wadeen ugu dambeyn waxay soo heleen cadeen kale oo telephone ama cell phone saa u taqaanidba kaas oo ka gooni ama ka baxsan macnaha information gabadha kale hadda la laasan yahay labada gabdhood mid ay hore adiga ugu sheegay midaanba way ka baxsiin qoraal ama message ugu dambeeyay telefoonkaas laga soo diray wuxuu ahay oo kula sanahay waa ka walwalsanahay moogaan karna adiga waa qof ku soo walwala amal last message kaas oo ahaa soo xagaas waxa ka cad in labada gabdhood hadda ay sheegay oo maqan iyo gabadha la raadinayo oo muuqaalkan title-ka ay kaga soo dhigaba inay saddex halkaas ku maqan soo sidoo kale baaritaanka waa la sii waday oo ugu dambeyn waxaa la helay dahabkii maqnaay oo hore ay kugu soo sheegay ay $50,000 Mareykanka joogo ala soo helay soo booliska markii dambeysaba way sii xoojinayaan in gurigiisa baara of course dad ugu tala galay waa booliska shaqadooda marka waxa dhacday meel guriga ka fogeen oo guriga gadaashiisa ah ayaa waxay ka arkeen sanduuq shinida sanduuqeeda macnaha sanduuq weyn oo shinaal oo loogu tala galay jiro sanduuqaas dhexdiisa ay waxay ka heleen gaariga ama furayaasha gaariga عندنا أنا جاري فرياش يدي وحيدا أي واحد لاقي هلي صندوق السنة بل أفرسه ده بكين جوري على جسوا هلي فرياش جاري وحيابها كل إيه ودتنا وحلا جسوا هلي صندوق السنة سو وحيابنا وكل إلى اللي كان هدي لعله ووسي تلاقي له هدي لعله waxaan lagu qabto si waxaan lagu qabto wax qorshe badan u degan laakiin booliska waqtan badan oo ka maskax badan baaritaankooda oo si xoojiyeen soo waxa dhacday in booliska dib u soo noqdaan ayagoo cadeemo gacanta ku wadaan kadibna ay baaritaankii ama interview si wadaan ay ku sii wareystaan ninkan lagu magacaabo Daniel soo waxyaabaha aan la yaab ku leh waxa kamid ahayd markii ninkan interview lagu bilaabo wax kasta cadeenkiisa guriga loo sheegay cadeen guriga laga soo helay wax kasta laga soo helay kadib wuxuu codsanahay wuxuu leeyahay hadaarta inaad si xuriyad u hadlo ama si comfortable u hadlo amal كاميرا يقدمي معناها اوغيين بوليس كاميرا واحد دوبتا اجرتو markii interview qolku lagu jiro soo booliski kama diidin way ka aqbaleen inay kaamirada ka dimiyaan laakiin codka back up ka la isticmaala ama voice recorder laga isticmaala ama cod laga duubay soo waxa xagaas kaga cadaaday ninkan inuu qirtaba ama dambiidan oo galaba inkastoo walow beeninayo inkastoo dhahayo hal kamid midilin ba aniga ina badbaadiya isku dayayo oo waxa rabay qolaa bursaneys wax camal ina badbaadiya isku dayayo amal saasay ku dhimatay soo waxa dhacday asigan maxkamadda inay xukunto xabsidayn sida saxda dilalka qofka geysto badan xabsidayn lagu xukumo xagaas oo damankaas soo marka waxyaabaha meeshan kaga jira muuqaalkan ay kaga fahmaan ahaan waxa kamid ah tusaale ahaan booliska hadda investigation-ka wada baaritaanka wada ku waxay raadinayeen hal ruux kaliya macnaha hal naf kaliya ay raadinayeen laakiin waxa soo baxday laba ruux kale oo maqan oo midkood kamid ah 2017 maqnaa soo marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan muuqaal ku raaxaystay waana jeclahay muuqaal noocan oo kale inaan baaritaan ku sameeyo adigan wax ka fahantaan soo damora muuqaaladan oo kale daawatid dadka waxay dhaan damora muuqaalada oo macnaha investigation baaritaanka daawatid adna waxaan noqonaysaa qof baaritaan badan baan soo marka insha Allah wixii fikradkaaga aad muuqaalkan xaq comment nooga soo qor sidoo kale hadaa jeclaysatay inaan muuqaaladan oo kale idin soo badiyo comment nooga soo qor oo ku suga comment-kaaga suga hadaa jeclaysatay inaan soo badiyo muuqaaladan oo kale xaq comment-kaaga noogu soo qorno noo soo baday aad ma sida insha Allah daawashada muuqaalkan aad ma sida waxaan u balanay muuqaalkii waxay kaga tagi doonaa insha Allah saasiyo nabadgelyo